kusoo dhawaada qisadeenii Princess Qajar Mema iyo Nimco Habi qaybteedii labaad. inta aynan u gudbin Nimco Habi iyo Qajar Mema bal aynu wareysano abwaanka heesta curiyay ee Cabdirashiid caaqilka dhagajila. abwaane heestani maxay tahay? heeskan waa hees taariikh leh inta badanna wax walba oo la sameeyo oo mataqaana waxa ku fiican inay leeyihiin taariikh. haddaba abwaan heestani goorma ayaad samaysay? yaasa u samaysay amaba aad ka samaysay? heeskan waxaan sameeyey 2017kii waxaan joogay magaalada Nairobi. heeska sida caadadu tahayba waxaan ka sameeyey qiso dhacday oo jacayl qof mataqaanay oo qof kale u qabay anigana uusan ii imaanay intuu ii sheegay uusan ii dhihin qofkaasaan jeclahay laakiin anigu mataqaanaa si kale xogta aan ku helay. abwaana inta waan kula garanay qisada halka aad ka heshay waa qisadii Princess Mema iyo raggii isdilay midkii ka midka ahaa gabayadii ama watixda laga hayay ayaad ka alifatay sidaan aragno. haddaba aanu sii gudubno Nimco Habi heestan sidee bay ku noqotay maxay sadareen? wallahi horta waan ka helay waliba inta koorskan ka helay oo magaranaysa luqadaha. wallahi anoo gurigayga iska jooga maalin waxa la ii soo diray wiil YouTuber macnaha waxay igu noqotay magaranaysa wax oo magaranaysa sabray maxaan ku sheega macnaha offside waxa aan fahmi waayo macnaha waxa ila noqotay sabrayso macnaha riya amal fahamti nimcadeydun baan ahaa odayga wuxuu isku dayay wax badan inuu iga dhaadhiciyo uu i fahansiiyo. haddaba sida aad maqasheen Nimco ma aysan ahayn qof heesta ka warhaysa amaba asbaabta loo sameeyo og balse caaqilka iyo Nimco odaygeeda maxay ka og yihiin? muxuuse fahansiinayay? muxuuse ka dhaadhicinayay? taasina dib ayaan u falanqayn doonaa. la soco qaybta saddexaad. ogsoonow inaan ku jecelahay أنا لا في more than my life أنا أحبك يا حبيبي نكو بين دمي مسانا ووجهي تدعى شخيق.